بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal lahaantiin meel kasta adduunka kaga sugantihiin waanigoo magacayga maxamed saalax cabdilaahi janabka daawaneysana waddo jacayl oo tushiya waxaan si xushmad ku dhalantahay kaga codsanaya inaad subscribe noo saarto like commentiga iyo sheerkeynta waxay la jooga saaxiibkay salaanko oo loo yaqaano shiikh maanta waxaan wadnaa challenge iyo kaftan qosol badan halkan waxaa noo yaala sida idin muuqata la xaashado annagu maan soo diyaarsan oo naloo keena bacdayn qof walbaaba oo baktay nasiibkiisu ka qaadaya su-aasha u soo baxda waa su-aasha u soo baxda ayuu ka jawaabaya iminka maana ka horreynaysa adiga meeda ka horreynaya aniga adiga maska horreysa aniga ka horreynaya si baa loo naxnaxsay moogta waxaa ku taala waxaan maala inay nii muuqato magaca aad neceb tahay iyo sababtaad ku necbaatay iyo magaca ma nebahay aday taasi ala isweydiinteeda le kolley niyo magaca waa necabahay waxaan necabahay magaca la yiraahdo Faadimo waxaan ku nacayna waxa weeyaan dadka badanaa hablaha miyiga ka yimaada gabadh kastoo miyiga ka timaada waxaa la yidhaha Faadimo magaca saasaan ku nacay magaca Faadimo haddii cid Faadimo la yidhahdo ku jirto dee iga taalahay waa kaf saasaan ku tagtay haa adag maas niwi ku hadhay hawlahaysaa artaniga dhigmiyo hal mid baa qaadan ma rabo niganaaga daro waxaa usoo baxday jacayl ma leedahay iyo maxay sababta aad ku jeclaatay unii horta jacayl waan leeyahay dhabta waan leeyahay jacayl weliba dee dadka isku si uma helo jacayl aniga waa kii cidnidee cilmi baarti two baanahay sababtaan ku jeclaaday horta eeg dadka labaa lagu jeclaaday magaceeda sheeg gabadha waxay dhahaa maaya maya dad daawanay dee waa ka jacaylkaaga gabadha maayaa la dhahaa maxaad ku jeclaatay maya dadka isku si looma jeclaado qofka dadka labaa lagu jeclaa dumarka gaar ahaan dadku waxay yaalaan haddaad gabadh jeclaanayso gabadh diin iyo dhaqan leh ya aanu gabadha ku jeclaaday dhaqan iyo diin waayahay daawadayaal subscribe naga ilaabina kulli nimay ku hadlun bay hawlahay sababtaan imika lahaa waa aniga inay joogtaan waxa weeyaan dadka kuweedaad ugu neceb tahay iyo sababta dadka waxaan ugu necebahay waa mid fudud tanaatii u fududay dadka waxaan ugu necebahay sababtan inayni sheegay dadka iska hamweynaysiiya waxaanay ahayn iska dhiga qof yacni dee shakhsiyadoodana aan ku kalsoonayna iyagu moogtahay qof un ku dayday qof un ka daba dhacay hebel saas u sameeyay adna saas same dadkaasaan ugu necebahay anugu dadka waa kala bixi maayo challengeyo badan oo soo wadnaa weli dumarka kuweebaad ka heshaa baa lagu weri ninkan noocyabaad ka heshaa onliho dumar baa aniga qayb dumar baan ku qaatay maarkayga ninka wado dumar baan wadahayba dumarka waxaan ugu jecelahay aan ku sheego gabdhaha magacyadooda la yaqaan maaya wada jecesha dumarka kuwaas ugu jecel dee waa jacaylkiisa magalaada
أنا هذا كاوين هذا كاسو توين حمل وين يا شو أكيد بينك كتار بطل كلام تعرف هيك ما حنط ريان أنا فريق بهالك بدي بيا تعرف يا حلا يا حبيبي كل من شغلنا لو واحد بسم الله واحد بسم الله هذا فريق كل يا حبيبي وشعلها وحتى تعال كي بكوبات يكيب الدنيا وادقة ولقينا وكشعلان دونا إلا يو ما كان بنتنا بنتها لكن كانوا هم بكشعل يوم ما تاشا وني متسوي بلا تادي فرق إيه كان صباح يا سير يعني سيري ما قاعد تعيش أنا عارف ما يقولي ما قاعد تعيش هذا هو صديق شيء ما قاعد تعيش ما يدبا ما يوم أيه ما يدي والله إني أقول ما يه waxaa haray gobolada murti waa markiisa iyo markayga gabadh ku jecel oo aadan adigu rabin magaceeda sheeg iyo gabadh aniga jecel oo aanan anigu doonayn baan magaceeda sheega waxaa la yidhaahdaa gabadh aniga jecel oo magaceeda way badan yihiin tuma sheega حليمة الحليمة الله يرضى عليك سكي شعب أنا الدوري ماي طبعا مع أبوي قلنا تختار مكان كان اسمه مسامح يا حليم مكان أبغى على هذا وأبغى المجتمع هالصبح qof waxaad ku tiraahdaa iska kay ammaangeli qof ninkan odhanaya aniga qofka hebel ya aniga iska kay ammaangeli sheeg qofkaad odhanaya imika halkaa u marnay falay hebel inaadayda nafta ilaahay badii kantay ammaanka ilaahay yidida ku dheh ما إنك هاي تاجتها kaloo fande ورنو ku soo baxday أعمل ولا إني بدأ البانس عامل من اللي يروح نفتو كنت عامل ولا لا بس يدير تاني والله وتاني محل في الرأس أصحابتي كان إذا كان يجوابي شو بس كنا كلامي إنها يعني بأمور جيل الدين ونكسين بعد تذكر ما نحرس تبارك وتعالى والله ها إن بدر إلهي بنا وحكي له إلهي بنا dadka ma in badan naxariistaa mise dadkoo dhan ما يتذكر ربما نحرسته إن بنا نحرسته هوينك يبنا نحرسته يتذكر ilaahay baa naxariistaa إلهي بنا نحرس بدن فحنا إلهي بنا نقف لنا نقبض قلبنا قلبك كتير قلوبتنا صافي سبسكرايب بنا كويسين وش بدي أصحاب سبسكرايب asxaabta waxaan jecelsanaynaa like share iyo subscribe واي وحنا نتيجة تجينا هذا يعني وحنا هذا اللي قدامين challenge كنت أسكوي بيها كوب بدن وكلنا وندي صورنا أنا قدامين أنا قاعدسينا لبه صوب عد تاج عد كعك عد كجنا أنت تبني اسمه عد كيس أو كعكان هيس والله والله أنا يمكن هيس adiga toona ii safgarasna baaski هيس hees ba أبقى رامي أبقى كويس أنا كودم ببقى لا aduu kuwa danba ها aniga adiga waxa yeeri tam taqaana si hore baan dhigeystaa إيه أو كمان أصحابه horta hees waxaan jecelahay mutfanka aan sheegay inaan heesaan jecelahay ya waxaan jecelahay kaliya yaabo heesiisa digfa تكفى إيه وش هي وقع هيس dayaxiyaad eegta toraad laygeedho daruuraha korkooda turbaan layga tumaayo intaasi kale taydii baa hadhaata wey aniguna anigu kuwa dambe kuwii hore mise kuwa dambe anigu waxaa taageerna sugaari heesta aan qaadayn waxaa la yidhahdaa qalbiga dhinacaaga jooga waxbaa jiidanaya
jawabana waxay deeqda aado jamasho awliya weliba ila jira jacaylka weliba ila jira waxaan u mahadcelinaynaa cabdille xamuud oo kaamarada quruxda badan leh muuqaalka naga duubayay waxaan leedahay channelka ku xidhnaada subscribe like comment iyo share intaba inta laga sugaya aad mahadsantiin